sideed kontonkii baan halka tagaano annagoo kooxdii labaad ee xamar qabataan oo hane ay riwaadkaysa sideed iyo kontonkii waxa naga horeeyay walaalaha Hargeysa Maxamed Axmed iyo Cumar Dhuule iyo qoladaas oo Ingiriis ku qaaday oo gaariga carmiga lagu qaaday oo fiisa sida top passport yaale annagu markaa jibaan haysay Soomaalinimo la yiraahdo niman baan ka haysay Dhuule iyo ninka la yiraahdo basbaas baa abwaanano ahayno xayaan ugu inay yarbana baha dabeetana meesha ligay markaanu gaalka ay marayno ayaa kantaroor baan Ingiriis ku kantaroor ma lahayn jirin wixii Soomaali way soo gali jireen baan ka bixi jireen laakiin markaad aad qarto koonfur magaalada markaad soo galayso bir baataala sidoo marka loo dhigo dabeetana la soo dega keen waraqiin maxas dabeetana baasaboortayaaliyo baan la weydiiyay waraaqo ma baan maqal dabeetana ma laga waay waana la xiray gudaha lagu tuuray 14 baan shan baan reer waqooyi ku nay kuwii kale waa la damintay meesha joogay ha kana maqal ha qabiil bay sheegteen waxa la yiri qoladii xaqaas ee degi jirtay waa la damintay ninba mid baa damintay ina Dhuuleeyo mid nala socotay waxa damintay Maryam Mursal Abaheed oo meesha guriyo oo daara ku leh afashantayadii reerka xaqqa sheeganaysay waxa nala yiri kala gudaha sheekadu way badnayd bil baan siiyay markii dambe markaan xidhnay bil iyo waxoogay yaa dawladda Cabdullaahi Ciise aanu arjuu qoranay dabeetana nimanka soo Soomaali weyn dooni iyo waxaan kaas ah la soo daayay la bil baan la siiyay markaan xamar galay aanu waxoogay ka dhignay riwaadii ayaana la ashkatay haddana la yiri waa ka dhacay fiisi hal mustaafiriin waana la xidhay dhulka ka baxabalay arji kale qortay markiiba basbaas baa abwaan weyn markaa ah mu'allifin oo wadanka haysta arjibu markiiba qortay oo dhagdhago macaga dhulka ka qaadana leedi Soomaalinimo aan u nimi labaatan casho fiisaana loogu daray sida Ingiriiska kale marka dadkii caynka ah waxba ku daalmay waa sheeko dheer oo muddo dheer soconaysay